haddaad isku aragto 12kan qodob jacayl dhab ah ayaa ku haya weli jacayl dhab ah ma ku helay waa su'aal jawaabteedu adag tahay balse waxa ka adag haddii lagu weydiiyo qofkaad xidhiidhka la leedahay dareen jacayl ah ma u qabtaa haddaad 12kan qodob aad isku aragto ama qaar ka mid ah ogow jacaylkii dhabta ahaa ayaa ku haya kow waa qof special ah markuu jacayl ku hayo qofkaad jeceshahay dadka kale la barbar dhigi maysid adiga indhahaaga wuxuu ku noqon doonaa qof kuu qaas ah oo dadka kale kaaga duwan oo aad si gaar ah u xushmayso laba waa qof dhammaystiran waxa kaliya oo aad arki doontaa sifaadkiisa ama sifaadkayga wanaagsan wax kaste oo qofkan aad jeceshahay uu samaynayo dhinaca positive-ka ama dhinaca wanaagsan ayaad ka arki doontaa oo arki maysid sifaadkiisa ama sifaadkayga xunxun saddex waxaad noqon doontaa qof isku dhex daadsan marmarna waxa kaa xidhmi doona amateedka oo wax cunto ah niyad uma heli doontid inaad cunto mararka qaarkoodna hurdada ayaad iska waayi doontaa waxaana kugu badan doona walwalka mar kasta oo xidhiidhkiinna uu khilaaf soo dhex galo afar mar kasta oo dhibaato ay idigu dhacdo oo aad xallisaan waxa sii xoogaysan doona xidhiidhkiinna markaad carqalado la kulantaan oo si wanaagsan aad uga baxdaan waxa sii xooganaan doona xidhiidhka idinka dhexeeya labadiina shan maskaxdaadu ka dhex guuxi doonaa dadka jacaylku hayo waqtigooda 85% waxa maskaxdooda ka dhex guuxa qofka ay jecel yihiin lix waxaad jeclaysan doontaa mar kasta inaad ag joogtid intaad ka fog tahayna karaahi ayay kugu noqon doontaa waanad dhibsan doontaa waxaanad jeclaysan doontaa inaad mar kasta aad ka ag dhowaato toddoba inaad mustaqbal la yeelatid ayaad rajayn doontaa oo aad mar kasta ku riyoon doontaa waxaad ka sii fakiri doontaa sida mustaqbalka aad u wada noolaan lahaydeen iyo meeshaad wada degi lahaydeen sideed wax kasta waad u huri doontaa qofka aad jeceshahay waxaa idinka dhexeeya xidhiidh aad u adag dhibaato kasta oo soo wajahda waad la dareemi doontaa waxaanad u malaynaysaa inay adiga kugu dhacday waxaanad la qaybsan doontaa farxad iyo murug wax kasta oo la soo darsa qofkaas sagaal dharkan muu jeclaan doonaa waxaad isweydiin doontaa markaad maryo cusub iibsanaysid ama aad dhar hore u lahayd aad ku labisanaysid inaad ka fikirto talow hebel ama heblaayo dharkan miyay ka heli doontaa ama miyuu ka heli doonaa 10 waxaad noqon doontaa qof hinaaso badan 11 caadifadaada ayaa ka awood badanaysa hamadaada inkastoo ay hamadu tahay wax bani aadmiga lagu abuuray laakiin markaa qofka aad jeceshahay caadifadaada ayaa ka awood badan doonta hamadaada 12 isma kantarooli kartid xadka baxayaad noqonaysaa dareenkaaga wuxuu noqon doonaa wax awooddaada ka baxsan laakiin nasiib darro jacaylku maaha mid waara waa marxalad aad u xiiso badan ama ku nacsiin doona laakiin marnaba waari maayo oo mar uun buu dareenkaasi tegi doonaa dareenka waxaa bedeli doona waxa loo yaqaano attachment oo ah xidhnaasho aad ku xidhnaanaysid qofkaad jeclayd oo aanad ka maarmi doonin marnaba